جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ولا ليال إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه حق توفيق لنا وافجيه لبكاس أي علماء يوضياشا يوحقرتك أي كهد لنا إلهي سبحانه وتعالى إنه نقد القاضي dhibaatada qabyaaladu ay soo jiiday iyo dhibaatooyinka kale oo iyada laftigeeda laga yaabo inay ay si buunbuuniyeen mawduuca walaalle uu yiri ka hadal oo ah saxaafada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo media carabigan al-i'laam lagu yiraahdo Soomaaliduna warbaahinta ay u taqaan runtii warbaahintu waa wax aad iyo aad muhiim u ah ila ay ku tilmaameen وأي راهدين السلطة الرابعة وأثورتي كاللباد أما استيت كاللباد دتك حكومة معمولة دتك توجيهية دتك أفكار تودا معركة مدحونية مدسنبا معركة هجامية وحلوي السلطة الرابعة بدنا الدول كوحة كتيرة صدح سلطة أما صدح أثورتي أما صدح أودود أود برلمانك أما شرع دجنتا هي أود فولنتا هي أود قضاها معركة قضاء وحال يرهدا مدة أفراد صور عضا وحويه وورباهنتا ودتك إيضا حكمتو دتك وحسن ويتوجيهين كرتا ويتشيدين كرتا دنك حنا ويتوجيهين كرتا صحافة إيضا أيا أبورتا ورركا أما ورر جري أي تضخيميسايو أي بونبونيسايو أي وينيسا نوع أيضاً تبها أهاتو أما ها أهاتو مدة دقيسي سيد راديو يوحلا متكا أما ها أهاتو مدة موقالك سيد تيفي سينما دا يوحلا متكا أما ها أهاتو مدة قرالك سيد جورنالا دا يو إنترنت كهذا صوب حي iyo haduu alla ku rooyay magaazinada iyo wixii lamid ah ama majalaadka waxa la yiraahdo dhamaantood waxay ka qayb qaataan macluumaadka iyo informationka gudbintiisa adduunku marka wuxuu leeyahay adduunka nidaamku uu ka jiro sida wadankan aan joogno kale iyo caalamka duwalku ay ka jiraan warbaahinta caalamku waxay leedahay shuruuc iyo nidaam u degsan oo qabanaya oo hadii ay ku xad gudubto lala xisaabtamayo ayay leedahay xataa mararka qaarkood hadii ay baahiyaan ama ay fidiyaan warar bulshada dib u keenaya xataa haduu run uu yahay warkaas xataa haduu uu run yahay lama ogola hadii warkaasi uu dib u keenayo bulshada markaas meesha ku nool taas laftigeedu waa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo Quraanka ku yiri oo markii dadkii munaafiqiinta ah iyo dadkii ay warka ay la boodaan إلهي سبحانه وتعالى إن بدن بالقرآن كقوات كي وحي يهرت ورك إسكهو بصدا ورك استول يدين سو شيء هاي إسكا قاعدة نين إسكهو بصدا سورس إسكا يدين كجيمد أما ماشي يدين كجيمد مال صحة متى يقولوك لصونان كرو إلهي وحي ليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هدي فاسق وور يدين سو شيء إسكهو بيا يا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومحاوب سنينا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واحد عكرتا ور ويل اسكا قوري قول اسكو سوخيري او اسكا يرهبل برهبل عاي ان لبودين او اد markaas dad bariin ama qof bari ama qof aad ku dulmisid baa laga yaaba an tusibu qawman بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إلهي وعليه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به مركي ويماذو أرن كصابسا دتك أمن جودة أما خبر كصابسا دتك معركتي وح عبسي قالين يور علاد شيء هي كوا مانجابك يكوا وحبسا ويلبودان ها ويب سايت هيل باشيغي BBC دا شيكتي أمريكان مارك فويس أوف أمريكا لغو شيغاي أما waa la yiri oo xagee lagu yiri ma garanayo hebel waa la yiri suuqa uu ka soo maqlay fadhi ku dirk marka saxaafadu runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan gaar ahaan kuwa qurbaha jooga
meesha ugu badan oo ay macluumaadka iyo informationka ay ka qaataan waa internetka iyo website-yada Soomaalida ee faraha badan ee dhamaantood ku salaysan ama badankoodu yaanu dhamaantood aan dhihin si aanu cadaaladda uga tagin in badan oo kamid ah waxa ay ku salaysan yihiin qabiil bal u fiirso magacyadooda ama waa magac qabiil ka tarjumaya ama waa magac maaragtay jiha muayana ama gobol muayana ama magaalo muayana ka tarjumayo inta say u badan yihiin website-yadaas bay akhristaan website-yadaas yaa wax ku qora dadka wax ku qora dad lagu kalsoonaan kara ma yihiin dad leh akhlaaqiyaadkii iyo adabiyaadkii saxaafadda caalamka ay ku shaqayso dad professional ma yihiin oo xataa soo bartay ilaan cilmiga saxaafaddu waa cilmi dhan oo jaamacaad lagu darso 4 sano looga baxo bachelor looga baxo ma yihiin mase waa nin inta website design gareystay wax isaga qora runtii waxa nasiib darro ah in dadka Soomaaliyeed lagu sameeyay wax la yiraahdo intellectual abuse waxa weeye qofka maskaxdiisa in lagu cayaaro oo wax maaragta aan u qalmin laga dhaadhiciyo oo dadka ka dhaadhicinayaan ay yihiin dad maangaab ah dad jaahiliin ah dad u badan dad maaragtay ama jiran haday rabaan aqoon ha soo akhristeene cudurkaas maanta culimada iyo waxgaradku ay ka sheekeeyeen dad cabay ay yihiin oo dhibaatadii maanta wadankeena ka jirtay ay si buunbuuninayaano dabkii shidmay ay petrol iyo benzin ay ku sii shubahayaan waxa loo baahan yahay marka in dadka waxgaradka dadka mutacallimiinta rag iyo dumarba qof weyn iyo qof yarba inuu arinkaas uu ahaado oo aad uga digtoonaado una ogaado in saxaafadu sidii walaalkeen uu sheegay xooday markuu hadda taqdiimka sameeyay saxaafadu ama warbaahintu inay tahay midi laba af leh dhanka khayrkana waa loo adeegsan karaa dhanka sharkana waa loo adeegsan karaa media hadda aan u jeedno TV-yada tan hadda Soomaalida u soo baxay khayr badan waa sheegaa wanaag way sheegaan qaar badan oo ka midna waxyaalo badan oo dadka aafa ku ah way sheegaan hadda maanta waa kuwaas muxaadarooyinka noo duubaya waa kuwaas dadka raba inay gaarsiiyaan halka inay ka dhacday maaragtay muxaadarooyin cudurrada Soomaalida maaragtay looga sheekeynahay waa wanaag weey in badan oo wax qorta wax khayr la ay qoraan oo hadaad fiirisid internetka cudurkan aan maanta aan ka hadlayno dad badan oo aqoon-yahan iyo odayaal iyo rag iyo dumar ayaa wax ka qoray oo internetka ku jirta hase yeeshee waxa aad u badan kuwa maaragtay sida xun u adeegsada kuwa buunbuuniya ayaa aad qabyaalada buunbuuniya ayaa aad u fara badan dhibaato yar baa meel ka dhacaysa dhibaatadii meeshii ay u fasiri lahaayeen si wanaagsan oo dadkaas meesha dhibaatadu ka dhacday dajisa ee walaalaha ayay waxa isku dayayaan inay la kala saftaan kani kan uu caayo kani uu tuhmo qolo uu tuhmo waxa kada halkaas marka waxa ka dhalanaysa inuu faafo sharki inuu faafo waxa loo baahan yahay marka waxa kamid ah in la hanuuniyo oo la waaniyo oo loo naseexeeyo dadka wax qora ilaahay inay ka cabsadaan subhanahu wa ta'ala ilaahay inay naftooda horta uga cabsadaan ay ogaadaan aakhiro in la weydiin doono qofku wax kasta oo ku hadlo iyo wax kasta oo uu qoro waa lagu weydiinayaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa laga yaabaa qofku inuu kelimad ku hadlo la yulqi laha balan markii uu kelmadda ku hadlayay uu iskaga kaftamayay ama si ihtimaam badan ma siineen laakiin waxa laga yaabaa aakhiro inay naarta ku fogeysiiso kelimadaas baa laga yaabaa sidoo kale qofka aqliga ilaahay siiyay inuu iska noqdo qofka maaragtay qof meel mugdiye joogo xaatibu al-layl qofka habeenkii iska soo urursada qoryaha gurto wax liya masxata waxa laga yaabaa inuu moodo inuu qori yahay ama xaaba yahay inuu warka suuqa markuu u baxo oo wax walba sheego sax ma ahan inuu website-yadan Soomaalida markuu akhriyo wax kasto ku qoran oo reality iyo xaqiiqo uu ka dhigana sax ma ahan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadith sahiha kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bikulli ma sami' qofka waxa been ugu filan in wax kasta oo maanta suuqa ka soo maqla uu sheego you don't need inaad sheegtid wax kasta aad maqashid waxay Soomaalidu dhahaan nin weyn iyo umlisaba say wax og yihiin uma sheegaan
umulisada iyo qofka weyn oo caqliga leh weynaanta laga hadlayo qofka caqliga wax kasta aad ogtahay macna ma leh inaad sheegtid hadallada qaar baa la qariyaa diinta xataa keenaysa maslaxad uusan ku jirin hadalkaas cidna ha u sheegi hadduu uu kicinayo dadka laabtooda ama qolo muayana uu kicinayo iska ignore galay ha sheegin faraha ka qaad haddaad adigu akhrisay xataa hadduu warku saxiix u yahay almaslaxa walmafaasid meesha laga fiirsho weeye almasaalix walmafaasid waxaa laga yaabaa mararka qaarkood hadal ama shay ama wax run ah inaan faraha laga qaado maxaa yeelay bulshada ayuu wuxuu u keenayaa mafsado ka weyn buu u keenayaa dhibaato ka weyn ayuu u keenayaa waxaan marka ugu naseexaynaynaa website-yada iyo idaacadaha iyo TV-yada Soomaalida in ay ilaahay ka cabsadaan in ay bulshada Soomaaliyeed ay u naxariistaan haddii kale waxaan iclaaminaynaa anagu meel walbana aan ka sheegaynaa TV-gii ama website-kii ama radio-gii dadka isku dira qabyaalada u noqdo microphone u noqdo dadka waxaan leenahay waxba ha ku iclaansanina ha akhrinina boycott ku sameeya hadda bariyahan waxa weeye Mareykanka iyo Israa'iil iyo meelaha ay dukaamadooda muslimiintu waxay boycott lagu sameeyo Falastiin markay baabiyeen waxaan leenahay boycott ha lagu sameeyo website-kii la arko isagoo qabiil buunbuuninaya yaan waxba lagu iclaansan yaan la furin hal la isku dardaarmo hal la dhaw website-kaas yaan la akhrisan TV-gii la arko isagoo u xaglinaya qabiil ama dadka maaragtay qabiilka u buunbuuniyo oo la yaqaan manasada soo saaraya TV-gaas yaan la fiirsanin waxa kada sidaas ayaanu leenahay laakiin waxaan ka hormarinaynaa inay iyagu dad badan oo khayr leh ku jira saxaafadda iyo bahda saxaafadda dad badan oo khayrka ka qayb qaatay dib u heshiisiinta ka qayb qaatay muxaadarooyinka sajila ayaa ku jiro badan kuwaasna waa u ducaynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in uu khayr uu siiyo adduunyo aakhiraba kuwa kalena waa u naseexaynaynaa waxaana leenahay iyagana waa u ducaynaa ilaahay soo hanuuniyo wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum